kabuubaya dilaalinta iyo tuugada inuu soo duulay sabrayn dabaashiyo waxa doonaya soconaya diyaaradaha heehaabaya ee ina dul haadaya dariilka iyo cagafyada buurta duminaya ee degaya xeebaha waxay doonayaan dhagaxe dalka waxa ka jira iyo dulmiga lagu sameeynayo qof quloo dareemiyo markuu ruux damqada waayay aadiidi weydeen wixii idinku deelqaafa dulqaad badani waa tuulaha waa doqoonnimo damaaciga galbeed iyo bariga lagu dul noolaado lahashada kalgacalka la diwaay waqti xaadirkani ka jira deegaanada Soomaaliland isagoo dhaliilihii ugu cuslaana hawada u mariyay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaana ka mid ahaa abwaanka ereyadiisii sida tan halkan waxaan ku duubayaa gabay la yiraahdo dameeridhaan raacday gabaygaasi wuxuu ka hadlayaa waciga taagan ayuu ka hadlayaa marka de mar baa anagu waxaanu ka hadalaa wixii markaa taagan baanu ka hadalaa marka waciga wadanka ka jira ayuu gabaygaasi qayb ka yahay marka gabaygu sidan buu ku bilaabanayaa qolo in loo kala dego oo darafya loo qaybsho la isku kiindilo rag bay daawadii tahay oo markay daamo loo kala qaxo ee siiga kor u diisho ay dirirto laba reer rag bay toodu darartaayoo niman baa ku diirsada markaa kala dareertaanee daaroodka baxay iyo hartiga debedda loo saaray dabka habar jeclada lagu shiday iyo duudda habar yoonis beelaha isdilay iyo shacbiga la isku dabargooyey dalka shiikh wixii bari ka xiga horumar loo diiday ee hay-ad qura oo degta iyo dawlad laga dhaarshay galbeed doogga laga beerayo iyo bari dagaalkiisa ina biixi dambaa ugu jirta oo waa shaxuu degaye haddaan maxamed waxu doonahayn shacabkii soo doortay inuu muuse uun daba socdaa waa damiinnimoe ma dameeridhaan raacday baa dookhayna kaahin degdeg inuu u taajiro 5 sano ee loo doortay uu daara dhaadheer dhisto oo dabaqyo loo iibsho dirhamkiyo inuu doolarka iyo dahabka meelaysto daclada inuu buuxsado oo raacda danihiisa galbeed inuu u diro hay-adaha deeqda bixinaya barigana dagaal lagu furo oo horumar loo diido ina biixi dambaa ugu jirta oo waa shaxuu degaye haddaan maxamed waxu doonahayn shacabkii soo doortay inuu muuse uun daba socdaa waa damiinnimoe ma dameeridhaan raacday baa dookhayna kaahin dabku shiday dalluuntuu qoday iyo dogobaduu saaray dabinnada la xidhay iyo xadhkaha guudka laga daahay dilka ciilaf weyn iyo sanaag dhiigga lagu daarshay demenaanta bari iyo galbeed wuxuu la doonaayo shaxda muuse degey waa midaan cidi dareemayne intuu dilay intuu daadla tegey amase duufaanku inta duurka joogta iyo shacbiga dibadda loo saaray dumarkii iyo carruuraha qaxay iyo ubadka diifaysan daldaalyada shacbiga haysata iyo daawal idooda aqallada la diday iyo guryaha ayda lagu daarshay duurjoogta iyo xoolaha daaqi kari waayey dibjiryada waraabuhu ku cunay ayda dacalkeeda da'yartiyo carruuraha qoryaha diiradda la qaatay dugsiyada la xidhay iyo ilmaha diinta laga saaray dadka qoloba qolo lagu diray ee dawladdu hubaysay ina biixi dambaa ugu jirta oo waa shaxuu degaye haddaan maxamed waxu doonahayn shacabkii soo doortay inuu muuse uun daba socdaa waa damiinnimoe ma dameeridhaan raacday baa dookhayna kaahin shirkadaha dalkeennii gurtay ee dahabka buubaya dilaalinta iyo tuugada inuu soo duulay sabrayn dabaashiyo waxa doonaya soconaya diyaaradaha heehaabaya ee ina dul haadaya dariilka iyo cagafyada buurta duminaya ee degaya xeebaha waxay doonayaan dhagaxe dalka waxa ka jira iyo dulmiga lagu sameeynayo qof quloo dareemiyo markuu ruux damqada waayay aadiidi weydeen wixii idinku deelqaafa dulqaad badani waa tuulaha waa doqoonnimoe damaaciga galbeed iyo bariga lagu dul noolaaday dalka dumay dastuurkuu jabshay iyo dawladda xumaatay ina biixi dambaa ugu jirta oo waa shaxuu degaye haddaan maxamed waxu doonahayn shacabkii soo doortay inuu muuse uun daba socdaa waa damiinnimoe ma dameeridhaan raacday baa dookhayna kaahin abwaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa si adag uga horyimay hadal dhowaan ka soo yeedhay safiirka waddanka Jabuuti u fadhiya Soomaaliland marka hore Faysal Cali Waraabe anagu waxaan u aragnaa inuu yahay astaan qaranka Soomaaliland uu leeyahay baan u naqaan waana ninka kaliya qadiyadda Soomaaliland difaaca ee u difaaca waliba si niyad iyo magaranaysa ay ku dheehan tahay iyo wadanimo marka cid kasta oo arrimaha noocaasana had iyo goor
waxaad moodaa meelaha kale marka laga hadlayo caalamka kale ama madaxda Soomaaliland meelaha kale ka hadlayso waxaad moodaa inaanay sida Djibouti ay uga hadlaan oo kale haddii madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele la soo qaado waba la isla urugsanayaa meesha la Hargeysa marka arrintaas horta anigu waa arrin aan la yaabay waxaan kale oo qabaa anigu horta marka hore Ismaaciil Cumar Geele inuu yahay cadawga Soomaaliland taariikh aad u dheer buu Soomaaliland la dagaalamay dhaqaalaheeda iyo horumarkeeda iyo jiritaankeeda waana ogtiino Soomaaliya ayuu u shaqeeyaayo u adeegaa ciidamadiisa geeyo ay ku dhimanayaan Hargeysa 200 kilomitir u jirtana ma soo boqo marka waxaan leenahay qarannimada Soomaaliland iyo xidhiidhnimada waa in la kala saaraa siyaasadda marka laga hadlayo iyo xidhiidhnimada waa in la kala saaraa waan ogtiino dekada Berbera markii maalgashiga ay ku sameeyeen Imaaraadku Ismaaciil Cumar Geele wuxuu sameeyay dawlad loo wada socon inta goore uu Muqdisho ka degay uu tagay in uu Soomaaliland ku weeraro tira malaha marka maalin walba intaas waxaad moodaa madaxdii Soomaaliland inay shilin gurato noqotay oo meel walba hadal laga shubayo mar laale marka Ismaaciil soo qaado maxaa Soomaaliya wax looga sheegay hadii qadiyadeenuba hadii ay ku xiran tahay inaan kaasina waxa uu ahaa